Hello Soomaaliyeey aniga safaraan ahay St. Louis aan joogaa lacag ma wato gaarigayga taayirkiisana waa xun yahay gaarigayga taayirkiisana aad buu u xun yahay waa arkaysaan halkan masaajida baan imid gaarigayga taayirkiisa saasuu duq u yahay waa xun yahay maxaa ma bedela halkan imid waxaa waaye dadka maba ii arkaan taayirkayga inuu baaba'ayo oo dhacay والله Soomaaliya dadkan Soomaali ma aha Hindida iyo Pakistaanta iyo Muslimka kala wax ka dhaamo xaweeye Soomaaliya waxba isuma aha nimankan waa niman Soomaaliya irir u badan oo daaroodna ku jiro xogaa ma jartaan ah masaajidkan ay haystaan waa niman aad iyo aad xun waxaweeye Soomaaliya heshiin mayso waxba isku darsan mayso waa la kala tagayaa ogaada magaca Soomaaliya dalka waa in la iibiyo qof walba wuxuu ku leeyahay dalka Soomaaliya my country everybody get a half I get my part hag baan aadahaya waayo aniga dadka Soomaaliya kan weeye war haddaan gaal aan ahaado even if I want I Christian it doesn't matter nationality is important I was ignored halkaan lacagta waa laga aruurinayaa shabaab waa loo gurahayaa qofka waa loo gurahayaa gaal waa loo gurahayaa maxaa dhahday ka shaqaysta meesha maxaa aniga la igu diidaa Soomaali baa ahay maxaa sababta maxaa aniga la igu kala taayirka iga bixiya daadho iga caab maxaa la igu diiday gaas iga bixiya daadho maxaa la igu diidaa sabab Minneapolisna same thing waa Soomaali waxba isuma aha Soomaali waxba isuma aha Soomaali waxba isuma aha wadanka lagu shirkoobo oo wadanka nationality-ga waxba isuma aha Soomaaliya waa la iibinayaa ama waxa qaadanaysa Ethiopia ama Kenya lagu darhayaa waa la iibinayaa Soomaali lagu ma heshiinayo Soomaali waxba isuma aha waa sell Somalia will be for sell I need my half because I not nationality I don't have no nationality now I go another nationality I go find another way to get my nationality be honest with you I want to go get another nationality no you're not gonna just making money for being Somali and rude me being a Somali in nationality and speaking Somali. Wallahi billah. Somali ina la wada noqonayno Somali ina wax wada cunayno waayo waxa dad habeenkii dhawaad markuu ninka khayra uu loo kireeyay hotelka wayna $1,000 aniguna waa ma akshayn. maanta masaajidkan xitaa la maanta saana u fadhiyo qof xitaa idahay qadam cunto ma jiro Somali baana joogto ku tukanayso. هاي نينك ما أنت إيسا مري أو ساي قلنا وانين دول بانتها وريها رجع بعمشان أو الولا بعمشان كشقة أو لو حدث كذا نقدر لا عتهت مساعد كلا العقل جاسي وريا مساعد كلا لو بقول جاس أدي جاسي واي لو بقول هدول كوسي حال يقول حال عندنا كوعن ما محل يقول قاري تاير كوسميس مو حال يقول بيل إسكربحي مو حال يقول بس كوسي صعب مو حال يقول ولا محل هذا اللاير كراس مو حال يقول أنت كيس صار هيستحق عبسه إمسا كيس بان هيستعمل ما لما بقول بعد كيس كان هيستانك Soomaaliya waxaana wariga idin tusin baa maanta idin tusaya wallahi because waxaan rabaa inaan idin la share garayso ama ku nax ama ku farax ama cadow igu noqo ama igu xaasid igu noqo Soomaaliya waxaan wariga idin la share garaysan baa maanta idin la share garaysanaya wallahi wali horena waa idin la share garaysay YouTube-ta hore la iga xaday Soomaaliya waa aragtaan kiiskan waa kiiskayga aniga waad aragtaan kiiskaas ujeedaan kiiskayga waa aragtaan kiiska waa probation-kii la gelay 7 years ban probation ku jira waxaasoo lacag la iga gurtay Soomaaliya waa aragtaan waxaa la bariga waxa waaye hadda waxa waa nimanka meeshan ama disability hashad war hooyada ay disability-ga oo Soomaaliya wadankayga cuntay wadankayga liqday aye waxaan aniga maanta disability-ga maxaa keenay sheekada barka maxaa keenay anigu waxaan u baahanahay wada ii qaban karto ii qabo weedi kalena ignorigan ina iga deysa un baa aniga u baahanahay ay garato inaan kula dhashay aye waxaan waa case-kayga waa aragtaa walaalayaalow case-kan aniga waa la kasbaa la ii xiray hadda ka hor 2008 ilaa 2010 kan xirnaa 2015
oo aan probation marna jeel ku jiray waxa waayana waxa la igu xirayna Soomaali baa lacagta aruurisay oo ka dambaysan nin Shakiib la yiraahdo oo Cumar Maxamuud Sheekh isaga dhiga Arlington Texas isaga dhiga iyo nin Jamaal ka dhuuro la yiraahdo iyo niman kale iyo niman ahweehan ah iyo niman irir ah iyo niman istir ah baa isku darsamay oo lacag inta sameeyana bay aniga maartay baan niman judge oo meesha been la ii sameeyay kiis ah tigid buu kiiska ka kacay tigid ana haysta ilaa cadawgaaga meel ku soo marama waaye hadaad meel u dhaqdhaqaada hadda tigid anigoo haysta ayaa waxa dhacday in tigidkii nin carab la isticmaalo oo carabkii nabto Soomaali badan buu ninkaas nabtay ninkaas oo tuug ah wuxuu dhahay naagtan waa maartay judge ka maartay inay maartay qaadiga dishay rabtaa way soo socotaa intuu ninkii waxa dhibiga meesha ka aha dabadna anigoo waxba u socono meel kale iska jooga jeel geeyo retaliation lagu judge garay markii damana inaan hadaba waa la diiday oo waxa weeye meesha waxa wadatay nin tuug oo dadka muslimiinta u represent garay magaalada state-ka jooga ay dad maartay qoliyaha saddexda xaraf ayaa watay case-ka dhanbo mara isiraac inay tahay waad arkaysaan Soomaaliya isiraac waad arkaysaan abahayo niyoro gaaloodi la jooga xariga lagu bilaabay xariga oo nagu socdaa Ilaahay naga qabto marka waxa waaye walaalaysaan hadba idin sheegay isiraac baan nolo ku wadaa isiraac walaalkay lama oga walaashay waa lagu sameey aniga waa lagu sameey xariga hooyaday waayeel oo la baabi'iyay wiil ayada ayna mas'uul ka noqon karno waxba qorin waxba akhriin baa mas'uul looga dhigay korka looga ilaashana anigana waxa la intii wixii markii hore la xiray markii hore inta la xarigan saal igu qalqaaliyay waxa criminal record-ka la iga galiyay baa waxa hadana walaalayaal la soo rogay waxa la yiri waxa la yiri maxaa raadaayay walaalkeed looma dhiibi karo nin iyadoo waxba la ogeyn oo maartay aan shaqada xitaa hore aan uga shaqeyn jiray walma aan shaqo ka helay oo baarmaha wax walba helay oo walaalkii rabay inaan meesha ka kaxeeyo ayaa ninkan shaydaanka ah oo Cumar Jamaal la baxay oo eeyga ah ayaa kiiska soo galay wuxuu marka igu diray county-gii buu igu diray walaalkii uu dhibaatada ka haystay asaga oo le gabadhan saan waaye yaan loo dhiibin walaalkii wax kiiska dhiga wax kale ka dhiga been naagtan aniga qaadiga waligay ma arkin I never tried this charge waligay Allah ma arkin maxaa yeelay aniga maalinnan maxkamadda ugu tagayna waxa way ballan bay ii qabatay waxa ugu tiri ama qaadi ama la kaale bay ugu tiri lawyer la imo ama lacagta keen inay xitaa ay payment plan iga sameeyso way diiday waayaha arin lawyer baan raadsanayay lawyerkina sidan buu ugu sameeyay aniga ninkan waxa way waan aqaanay laakiin ninkan ma u maleyn inuu saa sameeynayo ninkan nin xun buu ahaa oo maartay xaraas gareeyay oo waxa waa naagahan carabta fulfushu ii maleeyay marka aniga waxba iga waayaysaana dhacday inuu khiyaamo toriga mar qura uu meel kale iga soo baxay marka walaalayaal waxa dhacday ninkan saa igu sameeyay oo kiiska lagu qalqaaliyay sida arintaas igu dhacday arintaasna lacag badan ayaa lagu maaran waxa la dhahay waxa dhacday marka aniga laysan laba laysan aan haystay labada laysan waa laga kasalay asla maalintaas 2008 waa laga kansalay laysankayga naarsanka iyo laysankii oo security guard-ka ah commission-ka labada waa laga kansalay marka walaalayaal aniga shaqo fudud way shaqo culusna ma qaban karo gacanta bari iga jiraan waxa waa shaqooyinka fudud sida security-ga sida maartay waxa gacanta ka qorqorahayo waxa waan sameyn karaa waxaan gacanta ka qorqorahayo ama wax maartay security guard waxaas oo kale waan sameyn karaa laakiin waxyaalahan aniga labor work aniga ma sameyn karo be honest with you labor work way ugu adag tahay marka walaalayaal hadda waxa dhacday sidan ayaa dhacday in Soomaalidii ay maaragtay saa isu baabi'iso waxa waa maxaa ku dhacday qof walaalka kulli qof kale oo caawinaysaa qof walaalka haduu qof kala caawiyo maxaad beent uga sheegaysaa hada walaalow da masaajidkaas tago 200 ku siiyo ka kala tagto 200 ku siiyo kan muxuu u sheegaa 200 anaga soo siinay ma hebel baa 200 soo maxaa ka galay masaajidkaas waa masaajid hindi leedahay ayaa masaajid hindi leedahay hadu 200 is adoo Soomaali walaalka dadayna 200 igu darto maxaa micno oo leedahay walaalayaal waxba ii qabanaysaa aniga intaan ku gadanayaa taayirkan ku sameysanayaa gaas baan ku gadanayaa maxaa ka galay balaha Soomaali cadownimadooda walaalayaal eegabal waxa kale idin sheegayaa walaalayaal oo Soomaali waxba isu maaha wali rasuulka waad aragteen Soomaalina waxba isu ahayn waad arkaysaan sida dhacayso xaalada saan horeba aan idinku soo sheegay waad arkaysaan cadownimada la igu sameeynayo waad aragtaan waxa hadda kiiska saasan idin tusay
walaalkeena sidaas oo kale ayaa loo maartay wax oo micno lahayn oo maartay u hiisay oo wax cad ahayn walaalkeena sidaas oo kale dhibaato loogu geystay kiiska dabaad aragtaan walaalayaalo lawyer baan u tagay jaamacadda Sanatonia lawyer jaamacadda Sanatonia oo law school haysta waa kaas kiiska wuxuu ugu dhahay kiiska mujada walaalayaalo kiiska waad aragtaan lawyerkaas waraaqdaas soo qoray waa kaas arag looga Sanatonia mujadido waxa uu qoray wallahi waad aragtaan mujada lawyer $3,000 la imo dhahay jaamacadda waa kalmantu ku falgareena kiiska waa la tuuraya kiiska dambi ma aad gelin faylkayga dhina u geen nindan oo dhiino jaamacad heesta way waxa waaye hadda lacag ma aruurin karo 3,000 oo clear recordka ku nadiifiya ma aruurin karo xitaa aniga kaaniga waxaan dacwad aniga waxa weeye lacag aan ku falgareysta ma bahay away hadda waxa weeye Soomaaliya hadda aniga lacag aan bixi iska daana lacag faraha ka badan isiin lahaa waanan haysan tol qabiil wadan dad aniga maartay maqlaaya ma haysto waxaan halka aan ansarkayga dhageysanaya ba ma haystani hore aniga marka horta waxaan la igu sameeyay rekoorka la igelinayo oo haddana gadaal iga isticmaalayo wixii la igu soo sameeyay oo dad caruurtay dadkayga la iga celinayo la ii diiday wallahi oo billahi waa aragtaa scamming America waad aragtaa waxa la sameeyay qof ku heelinayna male ilaahay aan noo heeliyo wariya cadownimada bal arka hadda walaalayaal waxa weeye Soomaalidii bad waxaan micno lahayn waxba ka dhibeen babacada kugu adiga waxa ka dhigan qof lacag guranay Soomaal tuug ah waxadeys a'uudu billahi shaytaan ila aw rabbi adigu walaalayaal u fiirsada time up ECO oo isoo su'aalo isoo weydiiyada walaalkeena maxaaraday xorey maxamed heebogo xorey walaalkeena sidii ba maarta naagti madowga ayadana oo loogu heestaa bal hooyadii hadda dhaqaaleys hooyadiis ma lagu soo wareejo hooyadiis wiilka ma free laga dhigo wiilkaaga waa kaas adiga maxaad hooyadiis ma la joogaa maxaa naagtan maxaa meesha soo gali hadda kulliba hooyadiis uu la joogo maxaa naagtan meesha soo gali ayada hadda wiilka waa kaas hadda wiilka habarta haduu la joogo waaba ka kaxeen lahaa ama waan ku dhaqaaleyn lahaa waxa iyadoo waa qasbi lahaa laakiin waxa weeye qof xor ah meesha ma jiro annaga reerkeena dhan waa loo tashaday ilaaha naga badbaadi cadowga naga qabto hadda maanta nin dulbaanta sheeganaya nimankan Soomaaliyeed waxa oo dusha ka saaray ceeb waa ay caawin lahaayeen waxa ay igu sii dar lahaayeen waxna ma ay qodqodeen meel ba wax ka soo heshana ma dhahan laakiin nin dulbaanta oo dulbaanta oo hagar ila sheeganaya oo lugaha labada lugood Allah ka jaro labada lugood buu ka gooyay labada gacmoodna Allah ka jare ba waxaan dhan ka soo shaqeeyay ilaahay amarkiisa walaalayaalo ummadan cadowsana ummadan qofku kugu xiga ku iibinaya waranaga waxa weeye walaalayaalo anigu waxa idin sheegay anigu waa ka calool gaay dadkan Soomaali dhan iyo maarta qabiilkan dhan waa ka calool gaay waxaan uga calool gaay qabiilka dhulbaanta asaga bis iibinaya inta qof kale iibin hadda waxa weeye meeshan waa la isku iibinaya waad aragtaa maxaa wax Soomaalidii kula dhalatay baad deysaa wax ku baadhayso oo waanta ku daba fagayso see la yeelaya geeda qashin ah baa meeshan haysto oo waxba ahayn oo qashin ah Soomaali sheegta oo waxa ku oran jaleer hadda waxa weeye waa la iga fujin karo waa mid baaba damcay maarta inuu araga boorsada iga xoogo wallahi waaye ka waran meeshan baa joogta ka waran haddana waxa kaaga daran balan beentay ku dhigayaan waxa ugu iska joog galabta maqribka wax lagu qabanaya wixii imaanaya male wax xitaa ma qadaysa dhahay male maanta saa waagu bari halka imaaday ilaa maqribkan fadhiya walaalayaal Soomaali waxba isu ma aha wareedayaan isku daalin Soomaaliya wallahi xabashiya qaadanayso I wish ina Soomaaliya xabashiya way qabsan doontaa wallahi Soomaaliya oo wada jirta ma la arkaayo waayo waxa weeye qabiyaalad iyo hebel baayiri wariya wax ilaahay yiri maxaa lagu diiday in lagu garamo wax ilaahay yiri wax aad indhahaaga ku arkayso oo gacmahaaga ku arkayso wariya nin baa 250 ka soo qaadatay masaajid baa ka soo qaadatay kula it doesn't matter toban masaajid halka dan 250 ka soo qaatay maxaa ka galay sababta aniga lacagta oo ruusanayo meesha ku jirto sababta aniga lacagta u raasanayo baa meesha ku jirto aniga guriga ma iska fadhiya aniga shaqaysan kareynin oo aniga shaqadii aniga aan qabsan lahaa laysamadii aan ku qabsan lahaana aan la ii diiday
وأنا ولالك اللي إيدي ويدا سيل كذا ما فرينا عنك ولالك ما أنا محان سمعنا عنه قص كمان كوتشق عني وريا سومالي باسترات بينوس أي